السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير جرائد كان عوان كيسة وحالة يدها قرناقسي كو وحان لا قرناقسان يا موسى بيحي عبدي وحان لا سومالي لان ما هاد حال إنجليز سومالي لان وادول سوماليا قميسي إنجليز إيا طلياني سومالي ما يهين حد كأهد شيغيسو إيا قا كلا دكتي تدكونا بيلا أيو كلاها ما جرتو هاجرتو دغان وذاق أما دول وذاق سومالينا مربي هشيسي وحيكو هشيسي إن الدولة كلية يشان مركي دولة دي دحي إيه كدحيسي بربرطي نولي ببيشيسي يقول كي بكسو تشيدي أيو وشرع غضا موصونا رقي سومالي كلا عيدي بعد صفكو هوريك قجرت دادك صور بو هودلي سنة أكبري سبب عدولة دقالنتا ما جرتو وحي سومالي تاي بيهين دادكولي كميديهين مدحوينهودو ومحمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء وحسن علي خير سبب عاد markaas oo lu sheegata ma jirto oday reer Damcooda magaalada Damcooda ayaa degi jiray oo gaacood la oran jiray ayaa reerkiisii la yiraahdo raxad doonana midhaha baxay markaas uu yiri maanta magaalada muraadsanaya ayna keen ma baxay war ma muraadsanaya markuu magaaladii soo galay ayaa xabashiis weer ka qabatay markaas baala qoriyo wadanka babal qoriyo waaweyn bay saa ugu foorisay oo leeyahay markaas xabashiga 5 daqiiqo ka haray goortii naftiina gooy lahayd gaacood wuxuu yiri midho doonan lahayda waatii midhiisa ka dhal lagu qasbay midho doonan muuse way ka hoos baxda wiilasha meesha ka qaado waatii gaacood Soomaali wixii aad hore ugu geysatay aan is eegne wixii dambe dhibaato ka daa muuse adiga iyo maxamed kaahin wata taladini soo hortay muuse adiga iyo maxamed kaahin wata taladini soo hortay muuse adiga maxamed kaahin wata taladini soo hortay fardahan waalidkood laga cisayn ayna gooy baale muuse aan soo hooriyo hadalkee xaalkaagu waa hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho markii hore yaad Soomaali khaayintay inta ilaa quraan iyo dugsi iyo kulliyad Soomaali kugu tacabtay iyo waalidka ayaa noqotay hooyadii dile ayadii uma nagaado cilmigaagi iyo tacabkaagi wuxuu noqday inaad hooyada qaxisid hooyo Soomaaliyeed oo kalena hadhu jiidimaysid waxa la yiri jinku ku daafaday iska helaan oo ku saaxiib ku noqdaan waa sida tiinadii maxamed xakiin waa sida tiin ku daafada saaxiib ku iska heshay محمد إبراهيم عقال بايدين يقاني وكي جيد كذا حدي مركز أبتي يبدأ ويدين مدحوين الظاهر رياضي حضر ردي أتكا قادين يا فقشة مياد اللودي ما أنتنا عبد الرحمن عرض كوبوبطي قدي يقرنها سوهوشي قرت إذا قادنا يا إن أنقر هلان سواركا قدي يقرنها قدام كذا تقدر وشيء وسومالي وين كو لبا وإسلام صدح وافريكان مديريه مدوبه يا ادم قبيلو جوغبا وغدي دغرتا قادلاhay baan jawaab ka sugaya gudoonka qaadan weydo hadii kale hadaad waaranta iyo hadii wadka kale waxaan leeyahay reer sool sanaad iyo buuhood dagaal way siqaanaan laakiin ka sokeeyaha kuma degdegaan reer burco iyo reer Hargeysa ragina meesha ka qaata ilaahay baa kursi bixiya muuse iyo maxamed kaahin iyaga لوجه وحي غبان إني ما أنت رأيتكو قماميان إساقو وحسك عشة ولا يسودوا لي معها تذكر صور بدن كودا سنة أكبري بو هذا يغيبك كميدا فردي كعكع قرات شامع قرات علي قرات شامع قرات علي قرات شامع قرات سليمان قرات محمد اللي يرد شامع هذا وسكول هذا شفتك دقة غربة شوكته قبلها قناصته كوجلا حقاقة عشان إسلام حقاقة ما أنت شفتك دقة سوي بعض عينك كتا شتان وحنا كقبل لسان وعاد ما أنت كوت شتان يدك هنا ترجعي قال جوريتي دتك هنا ترجعي قال جوريتي قرأت شامع قرأت عليو ما هاي هذه مهارات فردي يا صاحبي دتك ما تدل ده فريسو هلا بقول لهم كل إحنا لو الله سبحانه دك دقوقل دتك ما ترجعي قال جوريتي يا موسى ترجعي بقدرنا يا ما أنت لا سبحانه بفتو بقولك كونه يوقف بولا أفتو بهايستا ودوري إنه مدفرش كدكتو هل بقول أحد لدتك هركع دتك قدم كأفراد دتك الصوماليين هي الدولة الصومالية دوما نقطة هاي
in marna Soomaali la gumaysan maayo naloo dilo marna kala go'i mayso naloo barakaciyo oo weerarna la kala bixiyo idina aadisha naga eegtaan markaati ficil la fuqa dagaalkii banka markuu qasaare ku batay ayuu wuxuu tamaniyay inuu dadka la socdo afduub qabsado hadeera gooja cad ciidamada la dhigay tarjeel lagu qodayay dagaalkii banku markuu qasaariisu ku batay dadkii Soomaaliyeedna toosay oo ku toosay dagaalka xaq darrada meel ay joogeen oo koonfur iyo bari laga soo xiriiriyay tiknikadii ee sirta xogta ogaadeen dhabta ilaa qiyaali wax ku haystay ayuu wuxuu doonayaa dadka 100,000 qof ee 30 kun ee caruurtii aaga wax ka dhigato inuu afduub qabsado oo dhigiisa ku furto arrimahaas u isticmaalaya soo kordhay waayahay dagaalka ee dawladda Puntland ay ku xoreynayso gobolka Sool sidee waragtaa waxaan u arkaa Puntland daayo Soomaali weyn iyo aadamiguba iyo islaamba inay ka qayb qaataan waayo waa dulmi waaniga hadda ayada quraan ka warramay ilaahay wuxuu leeyahay hadii laba kooxood islaami ay isdisho dhexgala haday kooxdiido marka oo wixii lagu heshiidiido isugu taga ilaahay ka soo noqonayso haday soo noqotana wacdaal sameeyo aayada quraanka dib tafsiirkooda Soomaali oo dhan iyo islaamku waxay xaq u leeyihiin inta degdeg loo eego gar la furo haday diidaan in la wada dagaalamo Puntland waajibkeeda gudanaysa Puntland waajibkeeda dastuuriga bay gudanaysa Puntland waajibkeeda dastuuriga bay gudanaysa Soomaali ba dagaalkan u furay islaamku u furay aadamku u furay dadka cid kasta wax ismood u furay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh shacabka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaga maxaa soo jeedinaysa inta badan waxaan u soo jeedinayaa war ku noqdo Sool ku noqdo gudaheeda isugu kaalay wax garadku gudaha isugu kaalay Sool haddii gacanta la gooyo gumudka ahara yaan maatadiina la leeynin oo la xidhinay idinka haleedin laayo maatadu hayno hadho idinka haleedin maatadu hayno hadho maanta waa maalintii Tabuuk Nabi Maxamed inta la gaaday la dilay la dhagxiyay Ilaahay yiri buuraa isugu dhufo oo yiri Ilaahay kuwa dhabarkooda ku jira baan ka sugayaa faraj ka sugaya war kuwa yareeyay inoo hadhin faraj ka sugaynaa halayna laayo Ilaahay ba faraj keenay soo xiro Sool oo garaad oo degdeg u soo galway kan oo garaad Salmaan garaad Maxamed oo degdeg u ganuga oo garaad Jacgar Ismaaciil oo degdeg u soo gal oo aqoon-yahanka wax garadka culimada dhalinyarada ganacsatada la saanad ninkii wax ismoodo ka